waxaan soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta oo door weyn ku lahaa barnaamijkan muddadii uu socday kaasi oo hagayay hadba halka uu marayo soo dhawaagaas bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh good morning ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada sharafta leh ee iyaguna halkan jooga ee qaybka ah horumarka qaranka ka socda ambassadors ka jooga the United Nations representatives international organizations civil society organizations iyo dadka kale ee qiimaha iyo sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan aad iyo aad baan idin salaamayaa salaantaas kadib waxaan horta u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland fursad uu ku soo bandhigo inuu wasaaradda qorshaynta siiyay madaxtooyada waxay arintaasi jawaab u tahay sida uu qiimeynayo madaxweynuhu qorshaha qaranka marka taa waanu uga mahad celinaynaa intaanan bilaabin hadalkayga waxaan jecelahay mudane madaxweyne inaan in yar horumarkeenu tiirarka iyo quwadaha uu ku fadhiyo haddaynu dib isku yar xasuusino arrimo aynu had iyo jeer la ilduufno ama aynu overlook garayno ayaa jira markii aanu soo bandhigaynay qorshahan horumarka markii horeysay aanu daahfuraynay waxaan ka sheekeeyay 1991kii markii la isku yimi 6 gobol ee dalkeena aanu dhisanaynay xagga sociology-ga marka laga eego dadkii intay halkaas ugu yimaadeen lahaa meel baanu dhisanaynaa iyo qaran baanu dhisanaynaa waxa isweydaarsanaa khayraadka ay haystaan iyo dadka maxaad markaa ka garanaysay haddaynu xagga sociology ka eegno waxaanu ka garanaynay dad hamigoogu uu sareeyo waxyaabaha inaan dareensanin laakiin waqtiyada ka dhashay waxa weeye waxa abuurmay wax la yiraahdo afka sociology-ga social value ama qiyam bulsho oo adag ayaa noo abuurmay oo oranaya inaan wax walba inagu qabsan karno arinta kale iyaduna muhiimka ah ee aan maanta halkan khadarna ka sheegay aad baan mahad celinayaa waxa kamid ah iyaduna yani daraasaad markaanu sameeyno dadkii wadanka iyo maanta horumarka inoo horseero asaasayaasheen iyo maanta inoo fadhiya uu madaxweynuhu safka hore kaga jiray markaan la sheekaysano aan ku nidhaano muxuu ahaa waxyaabaha drivers ama dabadeedii ka riixayay markii aad nabadda iyo horumarka maanta aanu ku taamayno aad sameeyseen waxa ka oranaya waxa lagu dhex jiray generationka dambe dhalinyarta dambe sidii ay nabad u heli lahayd sidii ay u heli lahayd fursad shaqo sidii ay u heli lahayd nolol wanaagsan ugu heli lahayd waxaan maanta hadaba halkan maanta ka sheegaya mudane madaxweyne wasiirada sharafta leh iyo marti sharafta kalaba hiraalka maanta rigaad lahaydeen oo nool ayaa maanta halkan socda waa hiraalkaas oo your vision and move maadaama 90% dhalinyarta sameysay mashruucan ama NDP3 ay ahaayeen dhalinyar ku hoos baratay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay ahaayeen marka hiraalkiini iyo visionkiini iyo Norway mudane madaxweyne qorshaha qaranku mudane madaxweyne maaha qorshe malaa'awaal ku salaysan waa qorshe ku salaysan xog iyo dhab dadkii uu khuseeyay laga soo ururiyay waa qorshe laga tashaday dhammaan hay'adaha khuseeyo gobolada laga soo tashaday waxa laga soo tashaday districtka laga soo tashaday waxa laga soo tashaday tuulooyinka laga soo tashaday waxa aan ku qaadanay ilaa dad 1000 qof oo reer Soomaaliland ayaa kamid ah kulanada la sameeyay dadkii ka qayb galay qorshuhu marka waa qorshaha noocaas ah ee aynu dhamaan dadku ay ka wada mid yihiin hadii la yiraahdo mudan madaxweyne qorshaha qaranku waa arrimaha hadii jarana la isku qaldo qorshaha qaranku project maaha qorshaha qaranku waxa weeye waa vision aynu leenahay qarannimada oo visionka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku hogaaminayo oo ah dad dimuqraadi ah oo barwaaqaysan oo dadku nolol fiican ku nool yihiin
noloshaasina ay tahay nolol loo siman yahay waa visionka aynu ku soconno waa kaa waxaan kale ee inoogu qoran halkani waa milestoneska aynu ku gaadhayno qorsheena horumarinta qorshaha horumarinta markaynu ka hadlayno walaalayaal muxuu kaga duwan yahay khadarna uu sheegay qorshayaashii hore wuxuu kaga duwan yahay waa hybrid laba model ayaan isku dhex darnay oo ka duwan sidii hore berigii hore waxay ahayd waaxaha ayaa sectorska waxa la yiraahdo waxbarashada caafimaadka arrimaha noocaasaan u qaybinaynay laakiin imika waxa lagu soo daray wax la yiraahdo flagship program oo ah mashaariic ay ka mid tahay tusaale aynu soo qaadanayno karno berbere mashruuca berbere ka socda waa mashaariic wixii is qaadan karaya ee economigeena wax ka bedelayo dhan sidii aynu ugu samayn lahayn mid walaalayaal aan ku soo samaynay laakiin mashruuceena horumarinta qaranku maanta wuxuu taagan yahay halkii la sameeyey hawshii ugu badnayd hadda ay harsan tahay oo ah fulintiisii waxaa naga go-an mudane madaxweyne fulinta hawshaasi inaanu si fiican u fulino annagoo kaashanayna international communities kana kaashanayna xoogeennana kaashanayna aqoonteennana kaashanayna inay si fiican aan u fulino inaanu iswaafajinno ama waxa afka projectska alignments lagu yiraahdo waxa ay international community wadaan iyo waxa aynu inagu qorsheena qaranku u sheegayna inaynu iswaafajinno ayaa iyadana naga go'an waxa mudane madaxweyne marka laga maarmaan noqon doonta diilaanada wasaaradda qorsheynta in capacity-geega iyo tayada ay wax ku qabanaysa inaan kor qaadno reform baan ku samayn doonaa haddii la yiraahdo anagu waxaanu aaminsanahay wasaaradda qorsheynta inay tahay technocrat facility meel dad farsamo isugu yimaadaan meel dadka lagu xusho yaamaan dheer laakiin yaalaan dheer aanan ku xulan ee cidii wax garanaysa aan isugu yeedhno ayaan doonaynaa noqono waxaan doonaynaa inaan mashruucan aanu noqon mashruuc mala awaal lagu maamulo laakiin mashruuc ku socda qiyaas oo tirooyina oo waxaynu gaadhnay iyo waxayna gaadhin bay noo sheegaya inuu noqdo statistics aynu cabir karno xog iyo dhab ku salaysan waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay mashruucan guddida technical teamka ayaan aad uga mahad celinayaa guddidaas oo inta badan 90% ahayd dadkeenii dhalinyarteenii reer Soomaaliland baan uga mahad celinayaa waxa kale oo aad uga mahad celinayaa international organizationska doorkii ay ku lahaayeen United Nations doorkii ku lahayd wadamada caawiya Ingiriiska Denmark dhammaan doorkii ku lahaayeen iyagana aad baan uga mahad celinaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh